Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada saaxiibayaal warbixin kooban oo ku saabsan waddanka Jarmalka. Marka aynu ka hadlayno wax uun ku saabsan Jarmalka, waa mid aan soo gaabinay waayo halkan laguma soo koobi karo qeexitaanka dhabta ah ee Jarmalka. Jarmalku wuxuu dhacaa bartamaha galbeed ee qaaradda Yurub. Waxa uu xad leeyahay dalal gaaraya 9 dal oo kala ah: Denmark, Netherland, Belgium, Luxembourg, France, Switzerland, Austria, Poland iyo Czech. Jarmalku waa dalka 62 ee ugu dhulka weyn dunida, waana kan afraad ee ugu weyn midowga Yurub. Dalka Jarmalka waa dalka 19aad ee ugu dadka badan caalamka, waana kan labaad ee ugu dadka badan guud ahaan qaaradda Yurub iyo kan ugu dadka badan guud ahaan midowga Yurub, kaasoo ay ku nooshahay in ka badan 82 milyan oo qof. Jarmalku wuxuu ka kooban yahay 16 gobol oo federaal ah. Magaalada ugu weyn waa magaalada Berlin oo ah magaalada ugu dadka badan ahna caasimadda dalka. Jarmalku waa xuduudda dhaqaale ee qaaradda Yurub, waana kan ugu muhiimsan qaaraddaas, qaas ahaan midowga Yurub. Waa dal leh taariikh aad u fog, waxaana ka soo jeeda dad dunida magac weyn ku lahaa oo isugu jira siyaasiyiin, saynisyahano, ciyaaryahano, dhaqaalayahano, qoraayaal, injineero iyo filosoofyo, kuwaasoo ku guuleystay 107 abaalmarin oo Nobel Peace Prize ah. Jarmalku waa dalka afraad ugu dhaqaalaha badan dunida, waana kan koowaad ee qaaradda Yurub, kaasoo dhaqaalihiisu ka badan yahay 3 trilyan oo dollar. Jarmalka waa dalka saddexaad ee ugu badan wax dhoofinta dunida, waana isla kan saddexaad ee wax soo dhoofsada guud ahaan caalamka uguna badan. 80% dadka waddanku waa Jarmal, halka 12% ay yihiin Yurubiyaanta kale. 8% waa dadyo kale. Waa dal horumaray oo leh hab nololeed bulsho aad u wanaagsan xagga caafimaadka, waxbarashada, amniga iyo jaamacadaha firiiga ah. Jarmalku waxa uu hormuud u yahay suuqa dhaqaale ee Yurub, isagoo sanad walba baxsha balaayiin dollar oo lagu kabayo dhaqaalaha Yurub iyo gargaarada caalamiga ah. Jarmalka waa dal ay ka jirto shaqo la'aanta ugu yar midowga Yurub, waana dal leh shaqaalaha ugu badan ee dhalinyaro ah guud ahaan qaaradda. Dhanka kale, shakhsiga Jarmalka ah waxaa soo gala sanadkii lacag ka badan 50,000 oo dollar, taasoo ka dhigan waddanka 18aad ee ugu qanisan dunida. Shanta boqol ee shirkadood ee ugu dakhliga badan adduunka, 28 ka mid ah waxay ku yaalaan Jarmalka, taasoo ugu horeyso Volkswagen Group iyo Daimler iyo kuwo kale oo badan oo ku yaala gudaha Jarmalka. Jarmalku waa dalka labaad ee leh soo galootiga ugu badan dunida, ayna ku nool yihiin marka laga soo tago Mareykanka. 18 milyan oo ka mid ah dadka waddankaasi waa dad soo galooti ama qaxooti ah, halka 10 milyan oo qof oo Jarmal ah ay ku nool yihiin bilaa sharci gudaha Jarmal. Sidoo kale, Jarmalka waa dalka 7aad ee ugu dalxiiska badan guud ahaan caalamka.
Frankfurt Airport waa garoon diyaaradeed kan ugu weyn uguna mashquulka badan gudaha waddanka Germany. Waddankan Germany waa federaal awoodda koowaadna waxaa leh ra'iisul wasaaraha dalka, halka madaxweynuhu yahay Mustaf Sarafeed. qaaradda Yurub oo Jarmal la'aan ah waa dalalka Carabta oo shidaal la'aan ah.